مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. برنامج كبعي فكر كاغا قيبتيس ku dayo kama aqli badna maanta waxaan ku soo qaadan doonaa taariikh nololeedka si kooban in la yiraahdo Bob Williamson Bob Williamson waa aasaasaha shirkadda la yiraahdo Horizon Software. Bob Williamson wuxuu xaafadiisii ama gurigii uu deganaa ka tegay markuu ahaa 12 jir wuxuuna ku noolaa yani wadooyinka ay seexan jiray meelaha gidaarada ilaa gurigu ahaa. Bob Williamson 12 jir markuu ahaa wuxuu bilaabay inuu noqdo alcoholic yani meelaha qamriga caba. 15 jir markuu ahaa wuxuu bilaabay inuu qaato drugs ama xashiishada kala duwan ama drugsyo kala duwan weliba qaarkood ayaga u qaadanaya si intravenous isagoo magarasa xagga irbad ahaan u qaadanaya. Bob Williamson wuxuu ahaa criminal yani ku kaca dembiyada qaybihiisa kala duwan hadday dhacta iyo hadday xatooyo tahay iyo hadday wax kalaba tahay. Bob Williamson wuxuu ahaa nin aad gacan ka hadal badan magarasa dagaalyahana aad u dagaalama hadduu doono dadkana waxyaalo fara badan gaarsiiya. wuxuuna ku soo qaatay waqtiyo fara badan wuxuu ku soo qaatay xabsiga marna gala marna ka soo baxaa. ninkan wuxuu ahaa nin yani aad dembiile aad uga dar u ah dembiyal fara badanna sameeyey. wuxuu ku biiray markii dambe militariga markii dambena way iska eriyeen ayagoo ku eedeeyey inuu yahay nin la yiraahdo sociopath inuu yahay. Sociopath macnaheedu waxa weeyaan waa qof antisocial personality disorder haysta yani waa qof ku adag tahay magaranaysa inuu dadka kale fahmo dareenkooda inuu fahmo. Bob Williamson wuxuu waqti ku soo qaatay psychiatric hospital ama mental hospital dhakhtarka ama xagga maskaxda ama dadka waalan lagu xanaaneeyo ay waqti ku soo qaatay. weliba madaxii dhakhtarka asaga u sheegaya inuu yahay xaalad inuu ku sugan yahay waxba laga qaban karin waxna inaan ka caawin karin noloshiisana ku dhammaan doonto xabsi iyo problem iyo dhibaato ku dhammaan doonto. ninkan wuxuu ahaa nin familkiisa ay kala tageen wuxuu ahaa nin familkiisii magarasa ay iska ka tageen ay nacayn. wuxuu ahaa nin magarasa daan waxba haysanoo xayraan ah. ninkan wuxuu ahaa nin keligii noolaa yani wax aanan saaxiibo lahayn. waxa ugu sii dara ninkan wuxuu caqiida ahaan u aaminsanaa wax la yiraahdo black magic ayuu u aaminsanaa. caqiida ahaan u aaminsanaa. laakiin waxa dhacday maalmaha kamid ah isagoo drugs wax qaatay inuu gaari ka xeeyay dabeetana shil halka ayuu ku galay. dabeetana xaalad wuxuu galay yani critical situation xaalad xun aad u adag magarasa ayaa dhacday. jirkiisa inuu kala baaba'ay uu magarasa isagoo dhan isku dhex darsamay. ninkan isbitaalka ay wuxuu ku sugnaa malaha isbitaal ay 6 bilood bay ku sugnaa nolol iyo geeri wax u dhaxeeya ku sugnaa. coma ay ku jiray magarasa 6 bilood muddo 6 bilood ku dhawaada. laakiin markii dambe markuu isbitaal ka soo baxay ayaa wuxuu bilaabay inuu meel ka shaqeeyo. dabeetana booskiisii ay wuxuu ku yiri waxaan doonayaa inaan ku shaqeeyo 12 saacadood 8 saacadood lacag baad igu siinaysaa inta kale hadda 4 saacadood hadana bilaash baan kugu shaqeynayaa sababtoo ama doonayo inaan helo yani waqti dheeri ama waqti dheeraad ama waqti fursad aan helo ma doonayo waxaan doonayaa shaqada marka soo baxana waxaan doonayaa inaan seexdo saan maalinta kale shaqada ku bilaabo. laakiin ugu dambeyntii ayaa waxa dhacday inuu ninkan ganacsi yar uu bilaabay. markii dambe wuxuu ku guuleystay ninkan inuu bilaabo shirkad la yiraahdo Horizon Software uu bilaabay. shirkadaas oo maanta yani in ka badan 15,000 oo college ama jaamacadood
ama dowladda Mareykanka ama ciidamada Mareykanka ay isticmaalaan siiyay ninkan ugu dambeyntii wuxuu ku guuleystay 2008 wuxuu ku guuleystay inuu iibiyo in ka badan 75 milyan ayuu ku guuleystay maantana dhaqaale fara badan ayuu leeyahay laakiin waxaad arkaysaa ninkani wuxuu ahaa nin guri la'aan ah wuxuu ahaa nin dembiyada kala duwan ku kacay wuxuu ahaa nin madarasada xabsi ku soo qaatay wuxuu ahaa nin dee nolosha waxyaalo fara badan sameeyay buu ahaa laakiin markii dambe wuxuu gaaray go'aan adag ayuu qaatay uu gaaray wuxuu yiri maanta meesha aan taagana ma doonayo inaan taagnaado waxaan doonayaa meel ka fiican inaan gaaro dabatana go'aan adag ayuu qaatay wuuna ka run sheegay dabatana Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna Allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtaraba غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل إله سبحانه وتعالى واحتراء وكإيجيا قانك وإيجيا إني رنتها إني كابنتهاي وكامتحان يا امتحان بكجلني يا مواقف بكجلني يا إسقوا إيجيا إن أدوحة شيء سكارنتها إن بنتهاي يعني أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فإذا عزمت وتوكل على الله مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر